بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دبادة جنالكينا قعم فرن قلبي صافي وإذن سو دوينا يا صومالي وين وان إذن سلامايا ملو بتشوكتان مالي ونكس. maanta waxaa ka hadlaynaa xaasidka saddex sifo uu adeegsado ama uu leeyahay ayaa maanta ka hadlaynaa. xaasidka waxaa waaye ruux daciif ah oo shaqsiyan gudihiisa daciif ah waayo qofka hadduusan daciif ahayn qof bini aadan ah ma ku mashquulayo. qof kale ku mashquulsan haddaa aragtid waxaa waaye daciifnimo oo gudihiisa ah waaye. marka xaasidka qayb ka mid ah waa inaanu ku qanacsaneen wixii ilaahay uu siiyey oo wax kaleenta uu raadina asbaabihii iyo waxyaabo badan oo xaasid ku quseeya marar badan aan kasoo hadlay. qayb kaleenta oo psychology ahaan aan ugu hadlayna waaye maanta qofka xaasidka waxyaabaha uu sameynayo see ku ogaan kartaa. kow inuu aada ku ammaanayo haddii aa caadi isku aragtaan, weliba markaa dad kaligiin markaa tihiin maaha, markii dad aad wada kulantaan oo asaga iyo adiga aad tihiin oo dad kaleente oo idin wada yaqaano xataa ama aan idin wada aqoonin oo qofkaana gooni u yaqaano adigana gooni ku yaqaano inuu bilaabo ammaantaas oo ka badbadis, ammaantaas oo buunbuunin oo adiga naftirkaaga aad dhehaysid dadka kula socda waxaa dhici karta inay ku yaqaanaan ay dhahaan xataa see ku dhici kartaa saa adiga xataa ayaabaysid oo aad uu ku buunbuuniyo ammaan ka badbadis weliba uu ku qarinaayo qosol uu ku qarinaayo inta badan dumarka adeegsado. tan labaad oo sameynayo waxaa ka mid ah social media. haddii saaxiib aad kula tihiin qof xaasid ah ama qof kuu dhow oo xaasid ah, social media laba nooc waay. in commenti uu kusoo qoro oo weliba commentigaas uu yahay commenti ka badbadis iyo inuu arko waxaa soo qoraysid. inta badan waxay u badan tahay xaasidka saaxiibka kula ah ama xaasidka ku dhow in waxaa soo dhigtid uu arko, laakiin uusan ka bixinaynin wax falcelin ah, uusan ka bixinaynin waayo diidmo gudihiisa ayaa jirto oo waxa adiga aad sameynaysid ayuu kasoo horjeedaa ama uu diidan yahay. taas tii waxaa social media. laakiin tan nolosha caadiga ah markuu ku arko inuu aada ku ammaanayo oo aada uu kuu buunbuuninayo oo wax adiga aadan ahayn, adiga naftirkaaga aad yaabaysid aad leedahay qofkaanayti waa ku talax tagay ammaanteeda aad dhehaysid ayuu sameynaa. ammaan waxaa jirto aa mudan tahay, ammaan waxaa jirto aa xaq u leedahay, ammaan waxaa jirto aa istaahishid adiga baa og tahay. laakiin ammaanta markay noqoto ka badbadis adiga xataa waxa waaye gudahaaga waa diidaysa, waxaa leedahay noocanisaan mihi waxaan ma jiraa aa dhehaysid. ammaantaas ayuu sameynayaa. ammaanta keliya miyuu sameynayaa? su-aal waxaa waa isweydii mudan. maya, ay qurux badnaan lahayd soo maha qofka inuu yahay xaasidka nooc adiga ku ammaanayo oo keliya inuu yahay, ama nooc haddii commenti aanu kasoo bixinayn uu korkaa eeganayo mar walbana. waxaa waa qofka adiga saaxiib kula ah oo xaasidkaaga ah amba walaalku amba qaraabo kula ah amba ku dhow, qofka mar walba soo booqdo maxaa la dhahaa bogaaga asaga waa weliba si sir ah qofka kusoo booqdo. haddaanu ku arkin dhaho maxaa ku dhacay qofka in badan kaa welwelaayo oo weliba si sir ah kaaga welwelaayo asaga waay. qofkii maxaa ku dhacay maalmahan ma arkine, qofkii xaguu ka baxay qofka ku dhahaayo asaga waay oo si sir ah u daawada istooriyaashaada aad soo dhigtid laakiin aan juuq dhahaynin. sidaas daraadeed ayaa waxaa aragtaa mar walba story markaa soo dhigtid istooriyaasha inay ka daawasho badan yihiin cajaladaha caadiga usoo dhigtid. story waxaa soo dhigtid mar walba u fiirso daawashadooda way badan tahay laakiin falcelintooda way yartahay. marka qayb ka mid ah qaybtii ayaa meeshaas aad waxawaay diirad u saareyso. storyga muxuu soo dhigay, maxay soo dhigtay, mar walba waxawaay mashquul adiga dhinacaaga ayaa jiro. intaas may ku egyihiin, way fiicnaan lahayd intaas inay ku ekaan lahaayeen, laakiin kuma eka xaasidka qaarkiis wuxuu leeyahay wuxuu sameynayaa shartaas oo inuu adiga iyo dadka ku dhow dhexdiina uu fitna ka dhaliyo ama uu fitna ka abuuro ayuu sameynaya. xaasidka waa noocii badan yahay. waxaa jirto shar waaweyn adeegsanayo laakiin ilaahay subxaana watacaala ayaa ka weyn, soo wax walba uu sameeyo waxaa waaye daciif waa asaga. qaarkood waxaa waaye camal shaydaan ayay adeegsanayaan. si kasto camalka shaydaankana waxaan dhahnay daciif waa, ilaahay yaa dhahay nagama dhihin daciif waa.
soo anagana waa ognahay inuu daciif yahay. markaadan ogeyn ayuu ku dhibaateynaya ama aad u buunbuunisid ayuu ku dhibaateynaya. qaarkood waxay adeegsanayaan camal shaydaan ayay adeegsanayaan oo waxaa arkaysaa qof adiga waxaa u dhimin maanta oo dhan waxaa waaye kabahaaga maxay ahayd jaraya amba karfantaadii sameynaya oo camal shaydaan ku adeegsanaya. intaas may ku egyihiin maya, waxay sameynayaan dadka adiga saaxiibada, dadka adiga kuu dhow family hadday yihiin ayay waxay sameynayaan inay dhexdiina ee fitna ay ka abuuraan ama isku dir ay sameeyaan. mar walba qofka xaasidka ah wuxuu raadiyaa amba ula saaxiibaa qof adiga iyo asaga xurguf ay idin dhex martay, mar walba uu la saaxiibaya. haddaad tiraahid asaga saaxiib uu kula yahay amba walaalo ku yahay amba qaraabo uu kula yahay, wuxuu kuleeyahay aniga qofkaan waxbana ma dhex marin. adiga qofkaas wax idinma dhex marin, laakiin qofkii walaalsha amba walaalka cadaawad u haaya adigana cadaawad ku haaya. soo inaad jeclaatid damiirka ayaa diidaya, ma cadaaweynsanaysid, kuma xadgudbaysid, laakiin ma la saaxiibaysid. laakiin qofka xaasidka mar walba wuxuu leeyahay cudurdaarkiisii ayuu leeyahay. adiga ma fahmi kartid, mararka qaar waxaa leedahay maya waa kaa saxsan yahay qofkan, laakiin ma kaa saxsana. mar walba wuxuu raadiyaa qofka adiga cadaawad ay kaala dhexeyso ayuu la saaxiibaa, ayuu isku dayaa xitaa mararka qaar inuu isku dhadhajiyo ayuu isku dayaaya. soo marka cadowtinimada qarsoon meeshaas waa xaasid iyo cadaawadna waxaa waaye hal. soo qofka waxa uu ku xasdaayo waxaa waaye diidma uu diidaayo wax adiga aad kaga wanaagsan tahay. mararka qaar waxaa laga yaabaa qofkaas dhaqaale ahaan inuu kaa sareeyo. dadka qaar waxaa kusoo dhacdo qof iga dhaqaale sareyso i xasdi kara, dhaqaale ahaan inuu kaa sareeyo. waxaa dhici karta aqoon ahaan inuu kaa sareeyo, mararka qaar mansab ahaan inuu kaa sareeyo oo meel sare uu dowlad ka hayo ayaa dhici karta. adigana aad tahay shaqaale caadi ayaa dhici karta. mararka qaar waxaa dhici karta inuu madax sare uu yahay qofkaaseed, laakiin adiga aad tahay qof caadi oo shacab inaad tahay. laakiin maseerka amba xaasidka iyo maseerka waxaa waa way isleeyihiin. soo kaa hinaasaya mar walba waxaa u muuqdo waxa adiga aad haysatid wixiisa ma arkaayo. xaasidka qanaaco daro ayaa ku jirto oo waxa asaga uu haysto. mar walba wuxuu isha ku hayaa qofka uu xasdaayo ama uu diidan yahay waxa uu haysto. xataa qofkaas hadduu waxaysan wuxuu arkaa inuu ka wanaagsan yahay. wax uun ayaa jiro uu ku diidan yahay. mararka qaar wuxuu ku diidayaa sida ilaahay subxaana watacaala uu abuuriyey oo qaabkiisi oo ilaahay subxaana watacaala uu u sameeyey ayuu diidayaa. mararka qaar wuxuu diidayaa dabciga wanaagsan qofkan uu leeyahay ayuu diidayaa. soo waxyaabo badan oo waxaa jirto adiga naftaada aadan ka ogeyn. haddii xaasidkaaga uu badan yahay ama aa leedahay xaasid badan aa leedahay, wax qurux badan waay inay horta ku dhibaateeyaan ma qurux badna, laakiin mar walba ood xaasid yeelatid mar walba oo noloshaada wax fiican ay leedahay waa hadiidin. soo qayb ka mid ah waaqici kuwa adiga kuu shaqaynayo oo dembiga kaa qaadayo oo ajarkoodii aad leedahay qayb ka mid ah waa dad ilaahay subxaana watacaala kuu soo diray oo ay inay kuu shaqeeyaan ay tahay ay kuu shaqeynayaan. marka ha dhibsani nolosha caadiga dhib waaye in dad ay ku xasdaan ay ku daba dhigtaan ay ku dhibaateeyaan dhib waaye. laakiin marka dhinaca kale aad ka fiirsa aad tiraahid ajarkeyga ilaahay agtiis ayuu leeyahay ayuu jiraa oo ilaahay agtiis ayaan ajar ka helayaa. markaad tiraahid qalbigaaga wuxuu bilaabayaa deganaan ayuu bilaabayaa. waxa ay sameynayaan wax ma u arkaysid, mana kasoo qaadaysid. waxaad u arkaysaa in xisaab adiga bangiga ay kuu shubayaan oo adiga ay ku shaqeynayaan inay tahay ayaa u arkaysaa. si walbo xaasidka wax qurux badan maa. qof xaasid haddaa aragtid qalbigiisa waxaa waa iimaankiisa nadiif ma ahan, iimaankaaga daciif waa haddaa xaasid tahay. ilaahay subxaana watacaala waxaan ka magan galnaa mar walbo in qof bini aadan ama qof walaal wuxuu haysto uu damac naga galo ama aan ku dhibaateyno. dadka qaar xaasidka ee damac kaliya kuma ekasoo waxay xusal doob ugu jiraan inay ku dhibaateeyaan, bal waxaa laga duceystaa inuu damac kaa galo wax walaalkaa uu haysto. oo ilaahay subxaana watacaala kariim waa bari, waxaa ilaahay ka barisid waa helaysaa. qofkaas wax uu kaaga wanaagsan yahay fiirin, waxaa adiga ku wanaagsan tahay fiiri, meesha adiga aad ka xun tahayna waxaa waa hagaaji. waana ku mahadsan tahay daawashadaada iyo waqtigaaga qaaliga aad siisay. videogan video kale oo xiga intaan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ciao.